xubno ka tirsan wakiilada beesha caalamka waxa ay xalay magaalada Muqdisho kula shireen madaxweynayaasha maamulada taabacsan Villa Soomaaliya ee Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Sida ay muujinayaan warbixinada, kulankaasi waxaa diiradda lagu saaray xaaladihii ugu dambeeyay ee ismariwaaga doorashada iyo shirkii xerada Afisyooni. madaxweynayaasha ku eedeeyay hoggaanka Puntland iyo Jubbaland inay fashiliyeen kulanka waxa ay codsadeen in la fasaxo oo dib ay ugu laabtaan deegaanadooda, balse waa laga diiday codsigaasi, ayuu yiri qof ku dhow shirka. Diblomaasiyiinta waxaa lagu waramay inay ku wargeliyeen saddexda madaxweyne in ciddii ka dhaqaaqda shirka loo aqoonsan doono inay tahay qaswade. dhanka kalena wakiilada beesha caalamka waxa la filayaa in maanta ay la kulmaan hogaamiyayaasha Puntland iyo Jubbaland si ay uga dhageystaan warbixinta shirka. la wareedyo muhiima waxa ay intaasi ku dareen in ergeyga qaramada midoobay Ambassador James Swan oo horkacaya wada hadalladan uu sidoo kale telefoonka kula xiriiri doono madaxda sare ee dalka sida Farmaajo iyo Roble. wakiilada beesha caalamka waxa ay u muuqanayaan in markan ay bilaabayaan dadaallo waji cusub leh kaasoo horseedi kara in cadaadiska uu ku xoogeysto madaxda Soomaalida iyo waliba in geedi socodka la wareegaan. kadib kulamadan waxa lagu wadaa in beesha caalamka, Mareykanka iyo wadamada kale ee daneeya arrimaha Soomaaliya ay soo saaraan war saxaafadeed oo ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin natiijada dadaalkooda. beesha caalamka ayaa hore waxa ay madaxda Soomaalida u siisay muddo 1 isbuuc ah in ay ku xaliyaan khilaafka doorashooyinka, fursadaas oo u muuqata inay burburtay isla markaana hadda ay u badan tahay in faragelin toos ay sameynayaan. Cabshakuur Maxamed Maxamuud, warbaahinta Nation, Muqdisho.